Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada English Center. Maanta waxaan bilaabeynaa koorsada maadada Engineering Mechanics qaybta staatiga ah. Insha allahu tacaala waxaan jabtar walba markii aan bilaabeyno waxaan ka bixin doonaa theory, kadibna waxaan u gudagelin doonaa examplada. Maanta cashirkeena wuxuu noqon doonaa waa general theory inaan ka bixino maadada staticska iyo jabtarka ugu horeeya oo ah vectors. Aan u gudagalno cashirkeena. Marka hore waa maxay mechanics? Mechanics maxaa la dhahaa? Mechanics waxaa waaye waa is the study of forces. Waa in la barto forces ama awoodo in la barto ama forces ama awood. Inta aanan u gudagelin macnaha barashada forceska waxaan rabnaa laba erey inaan barno. Ereyga koowaad waxaa waaye waa magnitude. Maxaa la dhahaa magnitude? Sidoo kale maxaa la dhahaa direction? Maxaa la dhahaa magnitude? Maxaase la dhahaa direction? Okay. Magnitude maxaa la dhahaa, direction se maxaa la dhahaa? Magnitude waxaan leenahay waxaa waaye waa sizing af Soomaali ahaan ereyga ugu macquulsan magnitude waxaa waaye waa cabir. Tusaale ahaan oo kale markii aan ka hadlayno cabir waxaa soo gelaya cabir oo guud ayaa soo wada gelayo. Cabirkaas wuxuu noqon karaa volumeka oo kale cabirkiisu waa meter cube, masska oo kale waa kilogram, temperature waa Kelvin. cabiradaasi ayaa waxaan dhahaynaa isku guud ahaan waa magnitude. Direction waxay noqonaysaa waa orientation. Direction waxaa waaye waa orientation. Okay, waxaa waaye waa direction waa jiho oo keliya. Direction sida u taqaanay waaye, laakiin magnitude waxay noqonaysaa waa sizing of every mathematical object waaye. Okay, laba erey kale ayaa maxaa lahay labadan erey ka dhalanayso macnaha oo ay hoos imaado. Labadaas erey waxaa waaye waa scalar. Ereyga koowaad waxaa waaye waa scalar. Maxaa la dhahaa scalar marka? Scalar waxaa la dhahaa waa mathematical expression of only magnitude. Mathematical expression of only magnitudes. Waa magnitudeska marka qaab mathematical ahaan loo qoro. Si kale haddii aan dhahno scalar quantities waxa ay keliya leeyihiin magnitude, ma lahan wax direction. Tusaale haddii aan ka bixino, tusaalooda waa volumeka oo kale. Volume waxaa lagu cabiraa waa meter cube. Volume waxaa lagu cabiraa meter cube. Volume waxa uu keliya leeyahay waa maxaa la dhahayay magnitude. Sababtoo macquul maahan in volumeka meter cube-kan aan raacsiiyo direction east west ama waxay ahaataba macquul maahan inaan direction raacsiiyo. Temperature-ka oo kale asigana waxaa waaye waa scalar quantity. Temperature asigana waa scalar quantity. Waxaan lagu cabiraa waa Kelvin. Macquulna maahan inaan jiha raacsiiyo. Sidoo kale waxaa ka mid ah mass asigana waxaa waaye waa scalar quantity. Waxaan lagu cabiraa kilogram. Macquulna maahan inaan jiha raacsiiyo. Tusaale haddii aan maxaa la dhahayay aan objectigan 100 kg waaye aan dhahno, macquul ma inoo noqonayso in maxaa la dhahayay aan raacsiino wax oo direction ah. Direction ma raacsiin karno scalar quantity. Waxaa jiro vector quantities. Vector quantities maxay yihiin marka? Vector sidana waxaa waaye waa mathematical expression of both magnitude and direction. Mathematical expression of both magnitude and direction. Okay, marka maxaa lahay waxa ay leeyihiin waa vector quantities waxay leeyihiin both magnitude iyo direction labadaba waa ay leeyihiin. Tusaale haddii aan soo qaadano tusaalayaashiis waxaa ka mid ah velocity waxaa ka mid ah velocity-ga. Velocity waa xawaaro. Velocity waxaa waaye magnitude-kiisa waa kilometer
per hour waa magnitude ku leeyahay xawaaraha tusaalahaan oo kale gaari aan soo qaadano gaarigan wuxuu ku socdaa 30 kilometer per hour ayuu ka socdaa ayaan leenahay so waxa way waa magnitude-kiisa waaye so direction-kiisana shay dhaqaaqay macquul maahan inuu jiha uu dhaqaaqo uusan haysan so waxa qasab ah inuu jiha oo haysto so gaariga ama east u dhaqaaqa ama west u dhaqaaqo waxa qasab ah inuu maxaa la dhahayay oo jiha u dhaqaaqo so velocity waxa way waa vector quantities so waxa tusaalaha kale ay leeyihiin vectorska waxaa ka mid ah acceleration isagana waxa way waa karaar acceleration isagana waa karaar sidoo kale tusaalihiisa waxaa ka mid ah vector quantitieska force waxaa lagu cabiraa waa newton object haddii aan haysano oo awood aan saarno awoodeenna ay ka badato objectiga awoodiisa objectigaas movement ayuu sameynaya so shay walba movement sameynayana waxaa qasab ah inuu jiha uu movement u sameeyo so meeshaasina waxaan uga gudbaynaa vectoriska maxaa la dhahaa iyo scalarska so waxaan u gudbaynaa vector propertieskiisa so waxaa jira 4 calaamadood uu leeyahay vectorska uu kaga duwan yahay scalarska so tusaalahaan haddii aan force u qaadano force waxaa usoo gaabinaynaa f so sumada koowaad uu leeyahay looga aqoonsado vectorska scalarska waxaa waaye in bold laga dhigo ama la weeweyneeyo fartiisa sidoo kale waxa aan u qori karnaa vectorska inaan kor arrow ka siino sidoo kale half arrow inaan kor ka saarno ama inaan calaamadan aan kor ka saarno so 4 calaamadood meeshaad ku aragto waxaa iska leh waa vectorska waxayna ka soocayaan scalarska waana calaamadaha ka soocaya scalarska so vector waxa uu factor ku yahay haddii laga helo 3 shardi so shardiga koowaad waxaa waaye point of application inuu leeyahay point of application ama origin point of application ama origin origin sidoo kale waa inuu leeyahay magnitude waa inuu leeyahay vectorka sidoo kalena waa inuu midda saddexaad ee direction leeyahay ama orientation waa inuu leeyahay direction ama orientation so tusaale object aan haysana objectigan haddii aan awood saarno awooddaasina ay ka badato awoodiisa movement ayuu sameynaya so 10 newton of force ayaan saarnaba kasoo qaad so movement ayuu sameeyey weliba jihadaas ayuu sameeyey so saddexdan xeer haddii aan ku dhawaaqno point of origin oo shayga meesha koowaad oo yaala waay magnitude 10 kilonewton waa aan saarnay movementigana waxa uu sameeyey jihadan idin muuqata so saddexdaas shay haddii laga helo waa vector ayuu maxaan lahayn noqonaya so waxaan u gudagelaynaa macnaha vector addition ayaan u gudagelaynaa so vector addition ayaan u gudagelaynaa sida vectoriska maxaan lahay liskugu daro vector addition sida vectoriska liskugu daro ayaan u gudagelaynaa so haddii maxaa la dhahay vectoriska ay maxaa la ku wada kulmayaan hal point waxaa loo if maxaa la add factors that meet all a common point haddii isku darayno vectors oo ku wada kulmayo meet the common point waxaan leenahay waa particle ayaa loo yaqaana vectoriska markii isku darayo kuwaasoo ku kulmayo maxaa lahay at the common point sidoo kale waxaa loo yaqaanaa concurrent force system ayaa loo yaqaanaa concurrent force system ayaa loo yaqaanaa so concurrent force systemna waa la dhahaa particlena waa loo yaqaanaa okay haddii maxaa la vectorska marka qaab laiskugu darayaa jiro qaabkaasina waxaa loo yaqaanaa ama rulkaas la raacayo marka vectorska laisku darayo waxaa waaye waa parallelogram low ayaan isticmaalayna so vectorskan waxaan iskugu daraynaa qaab tip to tail factorka koowaad maxaa lahayay tibtiisa ayaan waxaan ku xiraynaa factorka labaad tailkiisa so maxaa lahay qaabkaani waxaa loo yaqaanaa tip to tail method waxaan ku arki doonaa example soo socda waan si fiican ugu sharxi doonaa so laakiin hadda waxaa ogaataa in factorska markii isku darayo loo isticmaalo parallelogram low iyo method kale oo arki doona so marka qaabka waxaan iskugu daraynaa resultant oo kasoo bilaabayo tailka vectorka koowaad ilaa iyo maxaa lahay tibta last vector waxaan dhahaynaa resultant waana waxa aan calculationka ku sameyn doono hadhow markii aan vectorska isku darayno so
factorska marka order muhiim maaha. Factors waxaa waaye waa commutative waaye, ma orderka muhiim maahan sida factorska u kala hormarinaysa. Dadaarad factor A waxaad ku dari kartaa factor B, ama factor B waxaad ku dari kartaa factor A. So order is not important. So marka intaasi waxaan ku joojinaynaa general theory-ga oo guud ahaan maadada staticska iyo chapterka vectorska. Insha Allah muuqaalka xigo waxa aan ku lafaguri doonaa ama aan example uga bixin doonaa parallelogram lowna waa isticmaali doonaa, example-na waan ka bixin doonaa. Marka videogeena intaas ayuu ku ekaan doonaa. Insha Allah waxaa inoo balama muuqaalka xiga.